laga soo bilaabo wixii ka dambeeyay 2010 ilaa iyo bilowgii 2020 loolanka ugu weyn ee Premier League waxa uu ahaa kan u dhaxeeya Manchester City iyo Liverpool kuwaasi oo ahaa laba ka mid ah kooxaha ugu fiican dunida iyo Yuruba waxaana hogaaminayay laba maskaxood oo cajiib ah Pep Guardiola iyo Jurgen Klopp xilli kasta waxay ku loolamayeen heerarka ugu sarreeya ee kubadda cagta waxaana mar walba tartankoodu uu ahaa mid waaliya si gaar ah waxa loo xasuustaa dhamaadkii xilli ciyaareedyadii 2018 iyo 2022 labadaasi kooxood waxa kala saaray hal dhibic oo kaliya jadwalkooda Premier League inkastoo cadaadis iyo tartan adag uu jiray haddana waxa muuqday jacayl iyo ixtiraam ka dhaxeeya labadooda dhinac taasoo keentay in loolankooda loo bixiyo City Ball balse si daacad ah hadii loo hadlo xaaladdu way isbedeshay 2022 jawiga guud ee kubadda cagta Ingiriisku si weyn ayuu isu rogay nidaamkii hore ayaa wiiqmay waxaana soo baxay loolan cusub mid aan lahayn jacayl iyo naxariis ka dhaxaysa labada kooxood ixtiraamkii iyo jacaylkiina waxa si buuxda uga baxay daaqada hadda labada kooxood ee loolamayahay si weyn ayay isu necab yihiin Arsenal oo muddo dheer ka maqnay tartanka sare ee Premier League ayaa ka soo baxday hoos waxayna bilowday inay muujisay inay dib ugu soo laabatay heerkii ay ahaan jirtay waqtiyo hore waxa hogaaminaya Mikel Arteta oo hore u ahaa ardayga Pep Guardiola isla markaana ay ka caawisay inuu xushay ciyaartoy tayo badan Arsenalna waxay bilowday inay ciyaarto kubad qurux badan isla markaana ay hesho natiijooyin fiican waxayna noqotay arrin ka yaabisay Ingiriiska oo dhan xilli ciyaareedkii 2022-23 waxa uu ahaa mid cajiib ah waxay ahayd markii ugu horeysay oo muddo dheer kadib Arsenal ay si dhab ugu tartantay horyaalka Premier League waxay si xoog leh ula tartantay Manchester City taasoo ku qasabtay City inay si adag u shaqeeyaan si ay u gaaraan guushoodii saddexleeyda tartamada Yurub ugu dambeynna Arsenal waxay ku dhameysatay kaalinta labaad balse taasi waa ay ka badnayd wixii laga filayay sida daraadeedna xilli ciyaareedkoodu waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan dad badan ayaana sheegay inay taasi ahayd nasiib oo kaliya balse Arsenal aysan ku soo laaban doonin tartanka horyaalka Premier League xilli ciyaareedka xiga balse saddex xilli ciyaareed kadib Arsenal wali waxa ay joogtaa tartanka horyaalka tan iyo markaas badankoodna waxay la tartamaysay Manchester City sababtaasi awgeedna loolan cusub ayaa ka dhex qarxay labadaasi kooxood balse hadda waxa uu ka gudbay heerkii caadiga ahaa ee xifaaltanka kulanka Manchester City iyo Arsenalna haatan waa wax ka badan tartan oo kaliya hore Premier League waxaan ugu soo aragnay loolama kala duwan sida Manchester United iyo Liverpool Arsenal iyo Manchester United Arsenal iyo Chelsea iyo Manchester United iyo Liverpool iyo Man City laakiin hadda ma jiro loolan gaarsiisan kan u dhaxeeya Manchester City iyo Arsenal xilligan taageerayaasha labada kooxood si dhab ayay isu necab yihiin taageerayaasha Manchester City waxay kaga maadeystaan Arsenal inay tahay koox malxiisa xil ciyaareed kaste taageerayaasha Arsenalna markasta waxay soo qaadaan eedeymaha la xiriira 115 kiis oo Man City loo haysto dabcan waa arrin waaliya balse tani waa waxa ay jecel yihiin taageerayaashu marka labada kooxood ay isku wajahaan 19 bishan Abriilna waxay noqon doontaa mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee qeexaya horyaalka Premier League waqtiga casriga ah dabcan waxay ku tartamayaan horyaalka taasi oo kaligeedana kama dhigaysa kulan weyn balse waxa sidoo kale meesha yaala in koox walba ay u dagaalamayso sharafteeda ixtiraamkeeda magaceeda iyo argoosi wax kasta ayaana laga filan karaa Arsenal oo saddexdii xilli ciyaareed ugu dambeysay kaalinta labaad ka gashay horyaalka Premier League laba ka midana ay ka qaaday Man City waxay gali doonaan kulankan iyagoo uu saaran yahay cadaadis weyn mar rabaan inay noqdaan kooxdii ugu horeysay ee taariikhda Premier League oo 4 jeer isku xigta malxiis ka noqda horyaalka Premier League taasina waa rikoor xun oo aysan doonaynin waxay doonayaan inay ugu dambeyntii ku guuleystaan horyaalka guushuna waxay noqonaysaa mid ka sii macaan kuwa kale haddii ay ka adkaadaan Manchester City laakiin natiijooyinkoodii ugu dambeeyay waxay siinayaan kalsooni darro guuldarradoodii dhawaan ay kala kulmeen kooxda Bournemouth waxay ka dhigan tahay inaysan awoodin inay mar kale dhibco lumiyaan marka ay la ciyaarayaan Manchester City haddii ay lumiyaanna waxay si toos ah horyaalka gacanta uga saarayaan kooxda ay sida weyn u xifaaltamaan taasoo noqon doonta musiibo weyn intaasna waxaa dheer ka hor guuldarradii kooxda Bournemouth Arsenal waxaa laga reebay tartanka FA Cup-ka oo kooxda heerka labaad ee Southampton ayaa ka takhalustay waxay sidoo kale guuldarraysteen finalkii League Cup-ka oo Manchester City ay guuldarro baday dabcan muddo yar ka horna waxay u muuqdeen inay afarley koob ku tartamayaan balse hadda riyadaasi si degdeg ah ayay u dhamaatay kalsoonidoodu xoogaa hoos ayay u dhacday halka Manchester City ay kalsooni badan dareemayso saddexdii kulan ee ugu dambeeyay Manchester City waxay la ciyaartay kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska waxayna kaga badisay wadarta guud 9 gool iyo waxba lagama dhalin natiijooyinkaasina kalsoonida ayay kordhinayaan hadda Man City waxay dareemaysaa inay tahay kooxda ugu fiican taasoo ah xaaladda ugu haboon ee marka aad wajahayso kulan go'aaminaya xil ciyaareedkaaga natiijooyinkii ugu dambeeyay ee labada dhinacna waxay dhisayeen aasaaska kulan adag oo laga yaabo inuu noqdo mid ka mid ah kulamada ugu waaweyn ee go'aaminaya horyaalka Premier League taariikhda xilligan la joogo si xaqiiqo ayaa loo dhihi karaa horyaalku waxa uu ku jira gacanta Arsenal iyo Man City labadaba koox kasta oo guuleysata dhammaan kulamada u haray waxay noqon doontaa kooxda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League tanina waa mid ka mid ah waqtiyada yar ee xil ciyaareedka sidaas aan oran karno taasoo macnaheedu yahay wax walba inay miiska saaran yihiin marka labada kooxood ay ku kulmi doonaan kulanka weyn ee Axadda si kastaba haatee waxa laga yaabaa inaad tiraahdo Arsenal waxay haysataa faa'iido yar sababtoo ah barbara xitaa iyaga wuxuu
u yahay natiijo aan xumayn halka Manchester City-na wax ka yar guul ay u arki karaan fashil laakiin Man City waxay ku ciyaaraysaa garoonkeeda iyo taageerayaasheeda hortooda taasina waxay la micno noqon kartaa inay yareynayso faa'iidada Arsenal ay haysato Manchester City sidoo kale waxay leedahay faa'iido yar marka laga hadlayo ciyaartooydeeda waxay helayaan hal toddobaad oo nasasho ka hor kulankaasi halka Arsenalna ay khasab ku noqotay inay xidigaheeda muhiimka ah ciyaarsiiso kulankii barbaraha ay la galeen kooxda Sporting Lisbon lugta labaad ee heerka quarter finalka Champions League kaliya 4 maalmood ka hor kulanka Man City kulankaasi waxa uu noqon karaa mid aad u adag oo la isku dhow yahay waxyaalahaasi yaryar ayaana keeni kara farqiga lagu kala guulaysto haddaba maxaynu ka filan karnaa kulankaasi ma Arsenal ayaa si taxadar loo ciyaari doonto iyagoo og in xitaa barbara ay ku filan tahay mise Man City ayaa weerar buuxa la imaan doonto iyagoo og in guul kaliya ay u baahan yihiin ma noqon doonaa kulan maskaxeed mise kulan furan oo goolal badan la iska dhaliyo sida kubadda kolayga ayuu noqon doonaa wax kasta oo dhaca taageerayaashu si weyn ayay u sugayaan sababtoo ah kulanka waxa uu noqon doonaa mid si dhaba u xiiso badan laakiin sidaan horey u soo sheegnay sheekada kulankani waa ay ka gudubtay guulayste iyo laga guulayste waxay noqon kartaa kulan qeexaya dhaqanka kubadda cagta Ingiriiska ee waqtigan wararkuna waxay tilmaamayaan in Pep Guardiola laga yaabo inuu macsalaamayo Manchester City dhamaadka xil ciyaareedkan sida daraadeedna kulankani waxa uu abuuri karaa laba sheeko oo kala duwan waxay noqon doontaa sheekada ah in Pep Guardiola uu yahay maskaxdii ugu weyneyd ee kubadda cagta dunida oo isaga oo loo sacabatumayo uu bixi doono ama waxay noqon doontaa sheekada ah in ardaygii Arteta ugu dambeyntii uu macallin isu bedelay isaga oo ku qasbay Pep Guardiola inuu tago isaga oo murugaysan dabcan jawaabta labadaasina kulanka ayaan ka sugi doonaa sidoo kale ciyaartooyda iyo taageerayaasha labaduba si dhaba ayay isu necab yihiin xilligan taageerayaasha Arsenal waxay durbad diyaarinayaan orahyada caayada iyo hadallo ku saabsan lambarka 115 ee dacwadaha kuwa Man City-na waxay xilli horeba ku tilmaamayaan Arsenal malxiiska sanad kaste waxaana la isweydiinayaa kooxda ayaa ka soo bixi doonta kulanka iyada oo hadlaysa oo kaftamaysa kooxda ayaa se kaftanka laga xiri doonaa kadib marka laga guulaysto waqtiga ayaa sheegi doona sugitaankuna aad buu soo yaraanaya oo waqtigu waa u dhow yahay haddaba adigu dhinacee taageersan tahay kulanka labadan kooxood dabcan waan ognahay taageerayaasha Arsenal iyo Man City waxa ay doonayaan laakiin kuwa dhexdhexaadka ah adigu yaa taageeraysa maxaana u sababa fikirkaaga ugu wada qaybta commentiga sidoo kalena saadaale natiijada kulankaasi yaa badin doona yaa saqaadi doona horyaalka Premier League xil ciyaareedkan haddii aad wali ka mid noqon asxaabteennana soo dhawow oo ka mid noqon asxaabteena